Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha waxayna soo qaadan doonaa kulamadii xalay laga ciyaaray koobka adduunka iyo kuwa caawa laga ciyaari doona iyo sidoo kale guud ahaan kubadda cagta hadday tahay markay kugu horreysay subscribe noo saar hadaad hor noola joogtan like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay aan ku bilaabnay xalay waxaa ciyaaray xulka Brazil iyo sidoo kale Scotland oo kala matalaya qaaradaha America iyo sidoo kale qaaradda Yurubna waxaa ka socday Scotland, American waxaa ka socday Brazil. Brazilna xalay waxay xaqiijisay inay u gudubtay wareegga labada iyadoo 3-0 ku xadsoqday xulka qaranka Scotland taasoo kaalinta koowaad u sababtay inay Brazil u soo baxdo. Francis Juro waa ninka sameeyay 3 kulan oo uu ciyaaray 143 taabasho oo kubadda garoonka gudaha wuxuu saxay 67 baas oo sax ayuu dhiibay sidoo kale wuxuu guud ahaan tuuray 12 shoot ayuu tuuray wuxuuna gooshi ku aadeeyay 8 shoot oo bartilmaameed ahaa sidoo kale 5 fursadood waa uu sameeyay 4 goolna waa uu dhaliyay 1 goolna waa caawiyay sidoo kale Francis Juro rekoorka uu haysto waxa waaye inuu 5 gool dhaliyay koobka adduunka wuxuuna la sameeyay rekoorka ciyaaryahanada Romero, Zico iyo sidoo kale Garinja oo kuwaas u soo ciyaari jiray ama halyeeyada kamidka ahaa ee u soo ciyaaray xulka qaranka lagu magacaabo Brazil. Francis Juro wuxuu ku jiraa wacdireentiisa sidoo kale waxa uu tartamayaa abaalmarinta lagu magacaabo Golden Boot taasoo la siiyo ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee koobka adduunka ka soo muuqda isagana wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu horeeya ee ku guuleysan kara hadduu bandhigiisa sii joogteeyo. dhanka kalena Brazil waxay xaqiijisatay inay u soo gudubto wareegga xiga ee 32 iyadoo ku dhici karta caawa xulka ka soo baxa Group F ee Netherlands, Sweden iyo sidoo kale xulka qaranka Japan. saddexdaas mid ka soo baxay Brazil ku dhacaysa. Brazilna waxay groupkooda ugu soo baxeen kaalinta koowaad. Isla groupkaas waxaa ciyaaray Morocco oo iyadana 4 gool iyo 2 gool uga adkaatay xulka qaranka lagu magacaabo Haiti. Morocco iyadana waxay ku soo baxday kaalinta labaad taasoo u sahashay inay u gudubto wareegga 32. Morocco waxay ku jirtaa labada xul ee Afrikaan aan laga badin oo kala ah Morocco iyo sidoo kale Ghana inta lagu gudo jiray wareegga gruubyada koobka adduunka labadaas xul oo ka socday qaaradda Afrika ma laga badin Morocco hal kulan bareed ay gashay waa kulanka Brazil 2 kulan kamid ah way guuleystay Scotland iyo sidoo kale Haiti ay garaacday 7 dhibcood ay haysataa. dhanka kalena caawa waxaa la ciyaari doonaa kulan muhiim ah oo ka tirsan Group F waxaa iswajahi doona xulalka Netherlands iyo Tunisia aan ognahay inay ka socoto qaaradda Afrika 13 kulan oo koobka adduunka ay weligeed ciyaartay kaliya hal gool ay gaartay labadii kulan ugu dambeysayna waxaa laga dhaliyay 9 gool iyadana waxay dhalisay kaliya hal gool. Sweden ayaa 5-1 ku garaacday sidoo kale Japan ayaa 4-1 ku garaacday sidoo kale waxaa xusad mudan in kulankii Japan aysan wax shoot aysan ku aadin goolka Japan. dhanka kale Netherlands waxay haystaa 4 dhibcood hal kulan ay guuleystay. Sweden ay 5 gool iyo gool ku garaacday. Japan baraja ay la gashay oo 2-2 ahayd sidoo kale ciyaartooyda wacdareeyay kulankii Sweden waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo Brobbey oo ciyaara kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Sunderland sidoo kale Gakpo oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa wacdareeyay oo caawa laga filayo in kulankan ay sameeyaan bandhig cajiib ah ay xulkooda qaranka Netherlands ay sabab u noqdaan inay u gudbaan wareegga 32. sidoo kale waxaa ciyaari doona Sweden iyo Japan oo iyagana dhexmari doona kulan adag. Sweden kulankii u dambeysay waxaa garaacay xulka qaranka lagu magacaabo Netherlands oo 5 gool iyo gool ayaa la geeyay. nimankan difaacooda aad ayuu liitaa iyagoo tababarahooda Graham Potter uu isla safay 4-4-2 oo labada hore la dhigay weeryahanada Liverpool iyo Arsenal u ciyaara Alexander Isak iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Victor Gyökeres. midaasna ma aysan u suurgalin in Sweden ay wax guul ay ka gaarto ama hal dhibic xitaa ay ka soo qaadato xulka qaranka lagu magacaabo Netherlands. sidaasna isla tiradii ay geeyeen Tunisia ayaana la geeyay 5 gool iyo gool. caawana waxa ay la ciyaari doonaa xulkan lagu magacaabo Japan oo kulankii u dambeeyay 4 gool iyo ever geeyay xulka qaranka lagu magacaabo Tunisia waana ciyaar adag. Group F waa groupka ugu adag adiguna saadaasheeda ka soo dhiibo ama fikirkaaga nagu reeb qaybta faalooyinka ayaa u gudbi kara wareegga 32 ama wareegga xiga ee koobka adduunka. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddaad hor nool joogtaan like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay.